waa kuma Dr. Abiy Ahmed Cali, ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya. Dr. Abiy Ahmed waxa uu dhashay bishii August 15keedii 1976. Abiy waxa uu ku dhashay deegaanka Agaro ee gobolka Oromiya ee Jima. Dr. Abiy Abiy Ahmed Cali waxa uu ahaa Muslim, hooyadiina waxa ay ahayd Masiixi ama Kiristaan. Waxa uu wax ku bartay dugsigiisii hoose, dhexe iyo saraba iskuulka maxalliga ah ee Jima. 1991 sanadku markuu ahaa waxa uu ku biiray Abiy halgankii hubaysnaa ee ka soo horjeeday nidaamkii qalafsanaa ee dhergiga ee boqortooyadii Hayle Salaase, isagoo waqtigaasi ahaa dhalinyaro xooga. Abiy waxa uu ka tirsanaa waqtigaasi ciidamada isbahaysiga oo sanadkii 1991 nidaamkii dhergiga dhan iskaga leexiyay ee heryadii dhergiga iska tuuray. Kadib markii laga takhalusay nidaamkii dhergiga waxa uu tababar ka qaatay isbahaysigii Asefa ee galbeedka Waleega. Mowqifkiisa iyo takhasuskiisuba waxa uu ahaa sirdoon iyo isgaarsiin. Inkasta oo shaqadiisu ahayd militariga, haddana Abiy waxa uu qaatay shahaadada koowaad waxaanu bartay computer engineering isagoo oo ka qalin jabiyay kulliyadda macluumaadka kombiyuutarada ee magaalada Addis Ababa 2001. sanadku markuu ahaa 2005 Dr. Abiy Ahmed waxa uu dhamaystay shahaadada sare ee jaamacadda isagoo ka qalin jabiyay duruusta loo yaqaano Cryptology Machine Dynamics oo uu ku qaatay jaamacad ku taala dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Pretoria. Nidaamkan ayaa ah mid sahlaya isgaarsiinta xogaha labada dhinac ama laba dawladood. Dr. Abiy waxa kaloo uu haystaa shahaadada loo yaqaano MA, gaar ahaan isbeddelka hogaaminta oo uu ku qaatay jaamacad ku taala magaalada London ee Greenwich 2011. Kadib markii laga takhalusay nidaamkii dhergiga, Dr. Abiy waxa uu noqday askari ka tirsan ciidamada difaaca dalka Itoobiya 1993 waxaanu inta badan ka shaqeeyay waaxda sirdoonka iyo isgaarsiinta. sanadkii 1995 Dr. Abiy Ahmed waxa uu ka mid ahaa ciidamadii la geeyay dalka Rwanda xilligii xasuuqa ba'ani ka dhacay, waxaanu ka mid ahaa ciidamadii nabadeynta qaramada midoobay ee loo yaqaanay UNAMIR. dagaalkii xuduudaha Itoobiya iyo Eritrea waqtigii u dhaxeeyay 1998 ilaa 2000 waxa uu Dr. Abiy hogaamiye ka noqday ama ka ahaa sirdoonka si uu u helo fadhiisimaha iyo dhufaysyada ciidamadu ay fadhiistaan ee dalka Eritrea. 2010 Abiy waxa uu noqday korneyl sare oo gaashaanle ah, waxaanu qaatay gaashaanle. Dr. Abiy waxa uu aasaasay hay'adaha nabad sugidda macluumaadka Itoobiya oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano INSA. 2007 ilaa 2010 waxa uu Dr. Abiy ahaa agaasimaha INSA. wuxuu sidoo kale xubin ka ahaa guddiyo dhowr ah oo ka tirsanaa hay'adaha dawladda, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya wargelinta iyo isgaarsiinta sida Ethio Telecom iyo telefishinka qaranka dalka Itoobiya. 2010 ayuu Dr. Abiy u dhaqaaqay dhinaca siyaasadda, waxa uu bilaabay xirfadiisii siyaasadeed isagoo oo isku dayay in uu dardar geliyo aqoontiisa siyaasadeed, isagoo oo xubin ka noqday ururka Oromada ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano OBDO. waa xisbiga talada haya ee gobolka Oromiya tan iyo 1991. sidoo kale waxa uu OBDO ka mid yahay afarta xisbi ee bahwadaagta ah marka la soo gaabiyana loo yaqaano EBRDF.
2010kii Dr. Abiy waxa uu isu sharaxay in uu noqdo xubin ka tirsan golaha shacabka aqalka hoose ee federaalka Itoobiya ee qabaleega Agaro. intii uu u adeegayay aqalka hoose ee baarlamaanka waxaa jiray isku dhacyo diimeed oo u dhaxeeya muslimiinta iyo masiixiyiinta ama kristaanka ku teesan aaga Jima, gaar ahaan qaar ka mid ah isku dhacyadaasina waxa ay isku bedeleen rabshado sababay dhaawac iyo dhimasho iyo hanti burburba. Dr. Abiy ayaa isagu kaalin firfircoon oo muuqata ka qaatay dib u heshiisiinta lagu dhexdhexaadinayay labada qolo. kadib heshiiskaasi waxaa dib loogu doortay Abiy wakiilka Goma waqtigaasi oo ku beegnayd 2015. Dr. Abiy kadib waxa uu abuuray urur diimeed ka shaqeeya nabadda, natiijadiisuna ay ka dhalatay baahida loo qabo in la sameeyo qaab lagu xallin karo khilaafaadka diimeed si loo helo isdhexgalka muslimiinta iyo masiixiyiinta. 2014kii Dr. Abiy waxa uu dhisay Machadka Cilmi Baadhista Dawladda kaas oo lagu magacaabo Xarunta Macluumaadka Sayniska iyo Tiknoolajiyadda, iyadoo ujeedaduna ay ahayd in la abuuro saynis, tiknoolajiyad iyo xarun heer sare ah oo ay ku shaqeyso tiknoolajiyadda saynisku. waxa uu noqday agaasimaha Machadka Cilmi Baadhista Sayniska iyo Tiknoolajiyadda, waxaana sidoo kale uu noqday xubnaha ugu sarsareeya ururka hogaaminaya dowlad-deegaanka Oromiya ee loo yaqaano OBDO. 2015 ilaa 2016 Dr. Abiy waxa uu noqday wasiirka farsamada iyo tiknoolajiyadda Itoobiya. dabayaaqadii 2016 Abiy waxa uu ku noqday gobolkii Oromiya si uu ugu soo adeego bulshadiisa, waxaanu noqday madaxweyne ku-xigeenka gobolka Oromiya. dad badan waxa ay u arkeen waqtigaasi in uu Master Abiy uu ahaa nin si dhow ula shaqeeyay madaxweynaha Oromiya Master Lema Magarsa. Dr. Abiy sidoo kale waxa uu noqday madaxa xafiiska horumarinta iyo qorshaha magaalada Oromiya iyo dib u habaynta maalgashiga shaqada dhalinyarada iyo sidoo kale iska caabinta dhulballaadhinta oo ku fidsanaa gobolka Oromiya. Dr. Abiy waxa uu ku hadlaa luqado kala duwan sida afka Amxaarada, afka Oromada, afka Canfarta, afka Tigrayga iyo afka Ingiriisiga. Dr. Abiy ayaa la aaminsan yahay inuu yahay injineerka warshada dhaqaajinaysa ee ka dambaysa ururka OBDO iyo siyaasadda Itoobiya waqtiyadii ugu dambeeyay saameyn togan ku yeesha guud ahaan dalka Itoobiya. Master Abiy waxa uu qabaa gabadh waxayna u dhashay 3 gabdhood. waqtiga ay iskuursadeenna waa waqtiga uu ka tirsanaa ciidamada difaaca federaalka dalka Itoobiya. ugu dambeyntii Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa ah ra'iisul wasaaraha federaalka dalka Itoobiya waqti xaadirkan. ባብሮነት መሬት በመቻቻል ባዳበርኖልም ተፈቃቅደን ህዳሴያችንን ልናበስር ዛሬ እጅ ለእጅ ተያይዘን ቀኑ ማላንቺ ልዩ ነው አንቺ የሰው ዘር ለማብቀያ የህብረ ብሔር የጋራ አገር አብሪ ድመቂ ኢትዮጵያ።